waxaan rabaa inaan halkaan intaan kasoo fariin dhiibto macalinkeyga igu qaaliga ahaa markaan ku sugneen dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Bristol oo Engineer Yariso hadda wuxuu noqday gobolka gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan rabaa inaan halkaan ka cadeeyo waqtigaas waan awoodi waayay caashiq ah u qaaday anigoo yar ayaan dabcan aan jeclaaday Engineer Yariso dabcan waqtiga iyo waa xagga alle kama soo dhamaan inaa u sheegto balse haddaan awooda inaa fariinteeda aan gudbiyo si u gudbiyo anigu waxaan ahay gabar caashiq baan u qabto Engineer Yariso jaceelka aan u qabay waqtigaas waan awoodi inaa u sheegto Engineer waqtiga iskuul macallin buu ii ahaa aniga waan awoodi marka balse hadda ayaan waxaan hadal xataa ma garan inaa u sheegto waayo jaceelkiisa saaid ii haayo marka waan awood la xataa inaa hadal aan hadlo marka hadda waxaan rabaa inaan halkaan ka cadeeyo jaceelka saaidkaana u qabo Engineer Yariso anigu waa ku jeclahay saaida wili ku jecla nafsadeeda xataa waa ku hori karaa Yariso waa awood marka wallahi billahi waa awood waqtiga isla joogna Bristol balse hadda waxaan codsanayaa Engineer Yariso inaan jaceelkeyga si degdeg aad iigu soo jawaab celiso waxaan ahay gabar caashiq ku qabto waxaan ahay naf adigu ku waalanayso dartaada ayaan aniga halkaan magaalada Muqdisho aan ugu imaaday tuumos kaliya wadanka jooga 2 bil sanadku cusub aniga wadanka imaaday waxaan kaaga imaado dalka Ingiriiska waa halahaad inta soo kiiloomitir ina soo jar maxaa igu qasbay wax kale ma ahan anigu danteeda uma imaanin kaliya waxa uu imaaday nafsad ayaa halkaan iiga taalo qofaan jeclaa halkaan iiga joogo madaxiisa wallahi markaan TV ka arkaayo hadalkaaga iyo markaan ku arka aniga dhanba waxa damcadallada inaan ka soo baxo dan ma awoodo aragtidaada in aragtida kaliya shaashada aan ka arka intaas waa ku qanacsanahay yaa heer waxaan gaar xataa mobilkeyga ina shaashada sawirkaaga aan saarto aniga intaas maxaa iigu qasbay wax kale ma ahan heer waxaan marayaa xitaa sawirkiisa aniga aan shaashadeeda mobilkeyga shaashadu ii saaran yahay sawirkiisa Engineer Yariso intaas wax kale ma ah waa jecel aan adigu ku qabo Engineer Yariso anigu way jiraan balse anigu wax inta rag dunida joogta adiga ka ishaarta waa ku bariyaa waa igu codsi itixgili Engineer Yariso itixgili الله عاشق حنون بدنا الله عاشق حنون بدنا فيري هدي سماليا إن إنجليزي رو حاس قوة هذا حاسس كيس دب وكانت أرنتا قادس دب ما وكان قرط أنا هو حنا قف نفسد بحجعلان أدي واتي أنت سرنا كم أنا قاعد يبكي هاستا أنت سو كيلومتر سوق من أيام كسر جرا أنا قال الله بالكلية ودن كجوجا إنجليز كان مدحي سوق إماد وأود ويحلي جالس إنا أشيكته بس هدا أود إنا أشيكته أنا هو حاسس حاسكيس حتى حاسكيس ما أنا أسجعل بان أقوى Engineer Yariso حاسس كيس ده دب كانت هذا كواليس كورال والله أنا اسمه ده دب وكان كرتواي أنا جوان جعل هذا بس جعل كان دب معها دب مكانه أنا دب إلا معها إنه دب يجي إيمانه مركا أدا محدي هاد Engineer Yariso وقدوميها جوا كبنادر haddana ahana duqa magaalada oo laba jeer isku hayo saas daraadda u jeclaatay ma lii karaa maya anigu waxaan jeclaa intuusan xilka qabanin xilligaas ma qabanin iskuula macallin oo igu ahaa magaalada Bristol kula dalka Ingiriiska meeshaas isla joognay halkaas aniga aan ku caashaqay mooya aniga xil iyo waxaas waxba iga ma galan bixilkiisa iyo wixiisa aniga kuma hayst kaliya asaa caashaq aan asaa jeclaa waan xil iyo waxaas ma jeclaa marka aniga inuu jaceelkeyga codsigiisa tixgeliyo bisa u baahanahay okay fariinta ugu dambaysa oo taas ma fariinteeda ugu dambaysa aan u diraayo waxay tahay inuu si uu dhaqsiya badan igu soo jawaabo nafsi jeceelaan ahay
waa kaa